السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan geyiga Soomaaliya qodobada aan idin soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona laba diyaaradood oo la sheegay inay kooxda al-shabaab lacag malaayiin ah ugu geyn doonaan gobolka Jubbada Dhexe iyo dawladda Soomaaliya oo durbo ogaatay iyadoo kooxda al-shabaab ay isku diyaarinayaan inay lacagahaasi ka gudoomaan diyaaradahaas haddaba maxay yihiin diyaaradahan maxay tahay arrinta ka dambaysa faahfaahin iyo falanqeyn amuurta ku saabsan ayaan idin hayaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo amar guud siiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ku amray inaan xerooyinka laga waayay karin hal askari si looga hortago in mucaaradku ciidamada ay qortaan dhaqdhaqaaqa filla Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee dhanka ciidanka oo durba bilowday ayaan faahfaahin idin kaga hayaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa ciidamo ka tirsan beesha Naaleeye Axmed oo dhulbahante oo isku dhiibay ciidanka Somaliland iyo xiisad maanta ka taagan gobolka Sanaag sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa Fahad Yaasiin oo mar kale codsaday in la kulansiiyo farmaajo iyo xildhibaano tarbeel ah oo buux dhaafiyay guriga uu farmaajo ka degan yahay magaalada Dooxa qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa soo dhawaada haday tahay markii kugu horeysay nagu soo bir oo subscribe channelkan si aad u hesho xogaha wararkii ugu dambeeyana waxaan ka codsanayaa muuqaalkan haduu ku soo gaaray like saar waayahay waxaan toos u gudagaleynaa qodobadeena ee waxaan ku bilaabayaa laba diyaaradood oo la aaminsan yahay inay leeyihiin reer galbeedka ku sugan xayndaabka xeerada xalane ayaa la qorsheynayaa inay diyaaradahaasi ka tagaan garoonka aadan cadde kadibna ay tagaan meelo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe si ay lacag malaayiin ah ugu geeyaan kooxda al-shabaab ujeedada ugu weyn waa in la soo daayo gabar u dhalatay wadanka Jarmalka oo 2018 al-shabaab ay ka afduubteen magaalada Kismaayo wararku waxay sheegayaan in gabadhan ay u dhalatay wadanka Jarmalka dhawaanaya kooxda al-shabaab waxay baahiyeen masawirka gabadhan oo aad diif uga muuqato isla markaana ka walacsan inaysan dib dambe ehelkooda iyo qoyskooda oo la kulmi doonin macluumaadka iyo wararku waxay tilmaamayaan in dawladda Jarmalku ay arrinka dadaal ku bixisay iyadoo lacag dhan 3 milyan iyo 70 dollar la filayo in kooxda al-shabaab loogu geeyo meel kamid ah gobolka Jubbada Dhexe waxaana xiriiriye ka ah sida ay wararku tilmaamayaan odayaal dhaqameed caan ka ah gobolka Jubbada Dhexe kuwaas oo labada dhinac u kala dab qaaday xayndaabka xeerada xalana waxaa la sheegay inay dhawaan kulan ku yeesheen odayaal la sheegay inay ka socdeen dhanka shabaabka oo la rabay in ay arrinkan dhexdhexaadiyaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Jarmalka ee magaalada Muqdisho gaar ahaan midda ku taala xayndaabka xeerada xalane xogaha iyo wararku waxay tilmaamayaan in labada dhinac kulankooda uu qaatay saacado badan markii dambena waxaa la sheegay inuu kulanku ku soo dhamaaday isfaham iyadoo dhinacyadu ay ku ballameen in diyaarado aanan wadin wax hub ah kaliya ay saaran yihiin odayaasha dhaqanka shabaabka ka socda iyo sidoo kale mas'uuliyiin safaaradda Jarmalka ka socda inay Jubbada Dhexe tagaan geeyaan isla markaana lacagtaasi kadibna gabadha la soo wareego lacagta 2 milyan oo kamid ah waxaa la sheegay inay bixisay dawladda Jarmalka 1 milyan iyo 700 oo kalena waxaa la sheegay inay bixiyeen ehelka gabadha dabcan haddaan dib idin xasuusiyo waxay ahayd gabar samafala ah oo ku sugnayd magaalada Kismaayo 2018 ayaa la afduubtay 2024 dhamaadkeedii ayay kooxda al-shabaab gabadha soo bandhigeen waxay haysteen 2018 2019 2020 2021 2022 2024 waxay haysteen 6 ilaa 7 sano haysteen iyo bar waxaa la sheegay gabadha markii muuqaalkeedii hore la soo qaado iyo muuqaalka shabaab in gabadha isbedel weyn uu ku yimid oo xataa da'adeedu ay korortay qoyska gabadhan oo Jarmalka ka soo jeeday iyagu wayba ka samreen gabadhoodii oo waxay yiraahdeen gabadheen mar hore ayaa la dilay laakiin markii ugu horeysay oo gabadha muuqaalkeeda la arkay dabcan waxa ka muuqda isbedel weyn oo marna aan la filayn kaasi oo ku yimid hab jirka iyo hab nololeedka gabadha lacagtan hadii si toos ah gacanta loogu geliyo kooxda al-shabaab waxay tahay ama waxay ka dhigan tahay fashil weyn oo la soo dirsay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama hadda ay ku fashilantay dawladdu sida la leeyahay inay wax ka qabato in kooxda al-shabaab ay lacag helaan 3 milyan ee kooxda shabaab ay helayaan waxa la aaminsan yahay inay wax weyn u tari karto isla markaana ay wax weyn u qaban karto maadaama sida la aaminsan yahay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay dagaalka kula jiraan kooxda al-shabaab ay sababtay in si weyn loo wiiqo kooxda waxay ku soo kornaa saaxiibayaal hadii Allah wada loo raali ka noqdo wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu amar guud siiyay dhammaan talisyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
amarka waxaa la sheegay inuu yahay midkii ugu cuslaa ee ka yimaada dhinaca xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. taliska ciidanka xoogga dalka oo fulinaya amarka madaxweynaha ka yimid kaasi oo soo saaray amar ku wajahan dhammaan ciidamada kala duwan ee xoogga dalka ayaa subax kasta 7 subaxnimo xaadir inay ku ahaadaan xeryahooda dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. askari walba oo ka diiwaan gashan dawladda Soomaaliya marka la gaaro 7 saac oo subaxnimo waa inuu markaasi xaruntiisa joogaa sida qoraalka lagu sheegay. amarkan oo sumadiisu ay tahay TIXT XL X eber 56325 ayaa loogu gol leeyahay ayaa la yiri in ciidamada militariga laga ilaaliyo in ay saameyn ku yeeshaan dhinacyada mucaaradka ee filla Soomaaliya ay isku hayaan arrimaha doorashooyinka. dabcan waxay arrintan u muuqataa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hortagayo in xildhibaanadu aan dhahay in ciidamada dawladdu ay dabcan ku biiraan dhinaca mucaaradka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya baa la yiri in ciidamada lala socodsiiyo dhaqdhaqaaqooda xubun kasta oo mucaaradka taabacsanna si hoose loola socdo ama darajooyinka laga qaado haddii uu sargaal yahay. tanna waxaa la aaminsan yahay haddii ay dhab noqoto in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidanka ka ilaalin karo inay ku biiraan dhinaca mucaaradka. taliyaasha arrinkan ay ku socota ayaa la amray inay maalin kasta soo gudbiyaan warbixin dhammaystiran oo xadidan oo la xiriirta in askarigu uu yimid xaruntiisa. maalmihii lasoo dhaafay dabcan waxaa soo baxayay warar iyo macluumaad sheegaya in xubnaha mucaaradku intooda badan ay doonayaan inay markaasi qortaan ciidamo tan oo loo arkay inay tahay waxyaabo la yaab leh oo markaasi fajc ku noqotay dadka Soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud barigii uu mucaaradka ahaa dabcan si weyn ayuu ula dagaalamay xubnaha mucaaradka waxaana la aaminsan yahay in tan ay tahay fursadii ugu dambeysay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku doonayo in uu markaasi kala hadlo arrimaha doorashooyinka si baa la yiri loo soo gabagabeeyo. mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay leeyihiin anagu diyaar ayaan u nahay mar walba in aan la hadalno madaxweyne xasan sheekh maxamuud laakiin isaga ayaa albaabada naga xirtay inkastoo goor mucaaradku ay la kulmeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ka wada hadlay dabcan arrimo ay ka mid yihiin arrinta doorashada iyo qodobo kale oo muhiim ah sida ay tilmaamayaan macluumaadka iyo wararka aan helayno. madaxweyne xasan sheekh maxamuud dabcan isagu ciidamada ayuu doonaya inuu galaangal ku yeesho taa bedelkeedana wuxuu rabaa in mucaaradka laga ilaaliyo dhammaan ciidamada inay saameyn ku yeeshaan sida ay tibinayaan wararka iyo macluumaadka aan hadda helayno. wuxuu kusoo koraa saaxiibayaal wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan haddii Allah awoodalo u saamaxo. markana waxaan eegayaa ciidamo ka tirsan beesha Naaleeye Axmed ayaa la sheegay ee dhulbahantay inay isku dhiibeen ciidanka Somaliland ee ku sugan gobolka Sanaag. cutubyo ka tirsan ciidanka beesha Naaleeye Axmed ee dhulbahanta ayaa la sheegay in ay ka ambabaxeen meel ka mid ah gobolka Sanaag iyagoo uu tagay magaalada Oog tan oo loo arkay inay tahay fadeexad weyn oo dul hogatay beesha Jaamac Siyaad. beesha Jaamac Siyaad waxaa la sheegay iyo dhulbahanta intooda kalaba inay iyagu si weyn uga argagaxeen arrinkan iyagoo aaminsan inay tahay shirqool weyn oo loo dhigay dawladnimada fadal oo maamulka SSC Khaatumo. xogaha iyo macluumaadku waxay tilmaamayaan in tani ay tahay fariintii ugu dambeysay oo markaasi loo diray beesha Naaleeye Axmed oo ku aadan inaysan beeshu marna ka maarmin Somaliland. macluumaadka hadda aan helayna waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay guuxa la xiriira in beesha ay ku biiraan ciidamo xoogan ama ay ka baxaanba ay noqotay mid aad u sareysa. beesha Naaleeye Axmed Sool iyo Sanaag bay degtaa waa beel ka mid ah beelaha dhulbahante. dad badan waxay aaminsan yihiin in beesha xilligan ayba ka soo daahday inay markaasi Somaliland ay ku biiraan. sababtoo waxa la leeyahay hadda khilaaf waxaa jira dhulbahantaha dhexdooda ah gaar ahaan Jaamac Siyaad Naaleeye Axmed iyo sidoo kale beelaha kale iyo Bahar Same ay ku jiraan waxaana la aaminsan yahay in tan ay tahay arrin lagu furfurayo ciidamada beesha Naaleeye Axmed. 27 askari oo wata 3 Cabdi Bille iyo sidoo kale qoryaha doorriga u dhaca ayaa wax iska dhiibeen aagaasi magaalada Oog sida wararku tilmaamayaan. muuqaalo goordhow la helaan waxay sheegayaan in tani ay tahay fadeexo culus oo dul hooyatay maamulkan curdunka ee SSC Khaatumo. beesha Naaleeye Axmed dabcan iyagu aad bay u daneynayeen inay mar uun ka baxaan maamulka SSC Khaatumo. khilaaf ayaa jiray tan hadday run noqotana sida ay wararku tilmaamayaan oo ay dhab noqoto in ciidanka Naaleeye Axmed ay ku biiran kuwa Somaliland waa ceeb iyo fadeexo weyn sida ay tilmaamayaan dadka arrimaha la socda. markana Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la sheegay inuu mar kale codsaday in lala kulansiiyo farmaajo
iyo guriga farmaajo ee Dooxa ku yaalo aad markaas u buux dhaafay. Wararka iyo macluumaadka aan ka helayna magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar waxay sheegayaan in farmaajo shalay la gaarsiiyay wicitaano iyo qoraale ka yimid dhinaca Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu ku leeyahay Fahad hadda waxaan u baahanahay la kulanka saaxiibkayga hore iyo in arrimaha la isku hayay aan markaasi hoos uga wada hadalno. Wararka iyo macluumaadku waxay tilmaamayaan in xubnaha ugu saameynta badan dhanka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay taleefoonno badan u direen dhinacaas iyo farmaajo isla markaana uu farmaajo u sheegay inuu isagu hadda diyaar u yahay inuu la kulmo Fahad Yaasiin iyo cid walba oo xisbiga nabad iyo nolol ku soo biiraysa. Laakiin shuruuda uu farmaajo wato ayaa ah in Fahad Yaasiin uusan bixin karin sir iyo macluumaad ku saabsan arrinta hadda la isku hayo ee dhanka doorashooyinka. علشان حسبي والبا شيخ شريف كسوقات عبد الرحمن عبد الشكور حسن شيخ فرماجو فهد ياسين نول بدي سرقار أيو لي هاي أو دتك سكو قرصدو فهد ياسين ما دام دي حسبي أو كوسو بيري وحالة يري وين هذا نقول نين دتك أكل دبق هذا تبدل كينا وين هاتها نين حجية وهيا لمان عديمها إيا وحول بوكو آدن حاجة مركزي تاجن فهد ياسين حاجة داير ورك وعي تلماميان إن دورك ساعي سو آدن سيداس أو كله ولا كل مدونه xubnaha saameynta leh ee nabad iyo nolol isagoo kala hadli doono in xisbiga uu dib ugu soo laabtay. Gudaha saaxiibayaal wararkan intaas ay ku dhan yihiin. Haddii tamarkii kugu wareysay nagu soo bir oo subscribe channelkan muuqaalka like